cabdi shariif waa ciyaaryahan kubadda cagta ah oo ka ciyaari kara bartamaha garoonka daafac midig iyo xitaa daafac dhexe wuxuu la joogay kooxda tan markii uu 9 jirsaday cabdi shariif kulankiisa ugu horeeyay oo ciyaaray xilli ciyaareedkii 2016 2017 cabdi wuxuu udub dhexaad u yahay kooxdiisa wuxuuna ciyaaray kulankiisa ugu dambeysay bishii Janaayo 2019 xilli ciyaareedkii 2018 2019 cabdi shariif wuxuu qayb ka ahaa ciyaartii FA Cup-ka oo ku soo guuleystay isagoo rigooro dhaliyay intii ay socotay guushii rigooraha ee Manchester City finaalka cabdi shariif safarka kubadda cagta wuxuu bilaabay si dareen ah markii uu qoyskiisa u haajiray UK jir ahaan cabdi shariif wuxuu ku dhufan karaa tiro badan Steven Gerrard ayaa sidaas sheegay bishii hore waa ciyaaryahan aad xoogan sidoo kale wuxuu ka dhex muuqday kooxda halyeegii hore ee Liverpool captain Steven Gerrard wuxuu yiri waxaan ku soo bilaabanayaa xilli ciyaareed adag laakiin waxaan qabaa in ciyaaryahan kasta uu kubadda ku leeliyo waxaan isku dayayaa inaan sameeyo dadaalkayga ugu fiican iyo inaan gaarsiiyo heerka ugu fiican sidaasni waxaa yiri milkiilaha kooxda cabdi shariif ayaa yiri aniga ahaan waxaan gaaraa suurtagalnimadeeda iyo inaan mustaqbalkayga ku sii fogaado kubadda cagta